laakiin haddii dee haraadi ama wax la garan waayo dee ay arkaan ciidamadan iyo dadkan shaqaynaya nadiifinaya dhulkii ayaan waxaan ugu talagalay wali wax khatar oo ay dadku ay aad aragteen wali wal xaqarxa oo dadku dee qoriyeeyo rasaas iyo waxbay haysteen oo dee kulli meheradaha yaalay marka la gurayo walxaha la garan waayo ama wixii dee wax qarxaya ama dhibaato keenaya u eg وهجاك داود يلا هول جلاد النظيفين تكسعة السوق وهنا مجال هرجيسة دوان دب كحوجني هلكية أي واحد كم ده هول ودنا ده إذا ماذا كلا دوان السيد وين وقدح مقضى إذا ماذا من بعد قرن كي سمار دان وسارة ده عشان دقة أجاسمها جودة وسارة ده سي يا أجاسمها واحدة من بعد يصدق كله قار كم ده إذا ماذا يجو قبنا يهوش بارستا من هذا يقلب كقرحة هذا كو هولن هوش عسي والله اللي تلفزيون كسمني أي فاهمين كسيء سداي أو السعودان حولها بارستا يلا هذا وحيابها وقبصمي أجاسمه واحدة من بعد وسارة يعني عشان دقة أجاسمه كسر عمر كهراء تلفزيون كسمني بل سدان من هذا وبارسان سدان ساك هوش وضع إلهي بمهد له وحنا ما أنت هوش وقيب جلينا لبعتدن قاعدي ganacsatada iyo suuqan waaheen in haddii ay ku jiraan walxa qarxa oo dadku dee qoriyeeyo rasaas iyo waxbay haysteen oo dee kulli meheradaha yaalay marka la gurayo walxaha la garan waayo ama wixii dee wax qarxaya ama dhibaato keenaya u eg ama liquidka khataraha gelin karaya dadka in aanu ka ururino oo aanu dee si kontaroolan uga hagaajino oon u diyaar gareyno sidii dee meel ay ku habboon yihiin loogu soo qarxin lahaa ama loogu baabi'in lahaa qalabkaygii waanu haysanaa raggan meesha taaganaa waa miinayastayaashii waddanka waa rag u heegana oo marka ay direeska soo xidhaan ku tala gashan in ay gacmaha la gelayaan wax ummaddu ka baqatay oo qarxaya oo markooda horey soo gunaanadan yihiin marka shaqada soo gelayaan marka insha Allah taala waxaan ku dadaali doonaa inaan dalkayaga iyo dadkayaga ku caawino wixii farsamo iyo maskax aanu leenahay ee aanu baasha aanu baranay ee walxaha qarxa ayaanu ku dadaali doonaa insha Allah taala koladii meesha dab ka dhaco dabku wax kasto qarxi laha waa gubaaba marka hore iska sii gubataaba ee haraadiga ma filayna inay wax ku jiraan meesha laakiin haraadiga meesha wixii laga arko ee la garan waayo inaanu ka caawino iska rogooyinka iyo cagafyada guraya ayuu ku talagalkayagu yahay insha Allah taala agaasimo baladuna qaabka ay wasaaradda gaar ahaan waaxda meelbaadho hawsha u gashay bismillaahir rahmaanir rahiim rabadaan kaliin baan leeyahay dhammaan ummadda islaamka ah meel waliba joogaan gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland dhibtii ka dhacday suuqa waaheen ayaa wasaaradda gaashaandhigu kaga qayb qaadanaysaa in ay insha Allah bidmillaahil kariim ay baadho kullu wixii qaraxa heedee yaalay haddii ay wax horow yaaleen yihiin iyo haddii ay wax kale yihiinba dabkiiba horta la tegay laakiin haddii dee haraadi ama wax la garan waayo dee ay arkaan ciidamadan iyo dadkan shaqaynaya nadiifinaya dhulkii ayaan waxaan ugu talagalnay in ay dee wixii samata bixina insha Allah bidmillaahil kariim haddii wax ay garan waayaan oo ay la arko ka wasaarad ahaan dee wax miino oo gaar ah baan leenahay waaxda miinada ee wasaaradda gaashaandhiguna sida u shaqeyso insha Allah bidmillaahil kariim waa la arko si aad iyo aad u wanaagsan manfacle tababarale qalabkoodii haysta insha Allah bidmillaahil kariim wixii kalena waan ku sii saayidin doonaa in naga dhimano sida tababarada iyo qalab kale inaan helno bal howlgalkayeen xilmaad bilowdeen si ay hawshu socotaa hawshu fiican u socotaa war lagu jiraa ma galayna maxay hayday waqtigu waa iska kuleyl weeyaan waa lagu jiraa ciidan badan baa ku jira maxay hayday annaguna waa ka daba galeynaa marka waa la istabaya wali wax khatar oo ay dadku ay aad aragteen wali lama kulmin wax khatar ah laakiin waa degan yahay laakiin waxa iska dhici karta dhul baa jira aan guban oo dumay marka dhulkaas aan eegaynaa bal hadda inay wax ku baaqi ku noqdeen marka hawshaas aan ku galeynaa hadda